weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeennii toddobaadka iyo geeska Afrika. dowladda dalka Djibouti ayaa waxa ay sheegtay in dagaal xoogani uu xadka ay la wadaagto dalka Eritrea ku dhexmaray ciidamadeeda iyo kuwa dowladda Eritrea. ciidamada dowladda Eritrea ayaa waxa ay dowladda Djibouti ku tilmaantay in ay ahaayeen kuwa iyagu bilaabay rasaasta. waxa ayna dowladda Djibouti sheegtay in ciidamo ka soo goostay dalka Eritrea ay ka soo talaabeen xadka labada dal ay wadaagaan. taasi oo ay saraakiil u hadlay dalka Djibouti ay sheegeen in saraakiil ka socota dalka Eritrea ay ka codsadeen in ay dib u soo celiyaan. hase yeeshee ay markii dambe rasaas ku soo fureen, taasina ay dhalisay in ciidamada dowladda Djibouti ay ka jawaabaan rasaastaasi. wararku waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka dhasheen qasaaro, dhaawac iyo dhimasho isugu jira. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in sababta Eritrea ay u soo weerartay ciidamadooda jooga xadka kala qaybiya labada dal ay tahay iyadoo Eritrea ay ka xun tahay heshiiskii ay dhinacyada Soomaalidu ku gaareen dalka Djibouti. Maxamuud Cali Yuusuf waxa uu sheegay in dowladda Eritrea ay tahay mid aan xal iyo dirisnimo lagu wada noolaado aanan doonaynin. wuxuuna sheegay in ay meel kasta u tageen sidii gardarrada Eritrea wax looga qaban lahaa. waxa uuna intaa ku daray in inkastoo uu dalkoodu yahay mid la dagaalamayay saboolnimada, uu haatan ku qasban yahay in uu dagaal galo maadaama lagu soo duulay. waa sida uu yiri. wararka laga helayo dhinaca Djibouti ayaa waxa ay sheegayaan in qasaaruhu ay dhan yihiin 3 dhimasho ah iyo 20 dhaawac ah oo markaasi soo gaaray dhanka ciidamada Djibouti, iyadoo ilaa iyo haatan aan wax war ah laga haynin dhinaca Eritrea oo ku saabsan qasaaraha dagaalka iyaga ka soo gaaray. ciidamada labada dal Eritrea iyo Djibouti ayaa in muddo ah waxa ay isku horfadhiyeen xadka labada dal, iyadoo labada dowladoodna ay sheegeen in ay ciidamada xadka ka jooga difaac ku jiraan oo kaliya, isla markaana aysan weerar ahayn. labada dowladood ayaa waxa ay ciidamadooda horay ugu dagaalameen xadka kala qaybiya 2 jeer oo hore kadib markii ay mas'uuliyiinta labada dowladood isweydaarsadeen eedeymo ku saabsan in ay midba midda kale ku xadgudbayso. waa hagaag daawadayaal, weli barnaamijkii toddobaadka iyo geeska Afrika ayaanu ku guda jirnay. maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay sheegeen in magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay ciidanka ammaanka ee degmadaasi gacanta ku dhigeen hub noocyo kala duwan leh. wariyaha magaalada Gaalkacyo Warsan TV uga soo warama Mahad Jaamac Koronto ayaa arintaasi inoo faahfaahinaya. magaalada Gaalkacyo waa magaalo ay wada degan yihiin beelo kala duwan, waxaana ka jira 2 maamul oo lagu kala magacaabo Puntland iyo Galmudug. magaalada waxaa ku soo batay qaraxyada, falalka amni darrada ah, khilaafaadyada u dhaxeeya labada maamul. ciidamada booliska ee gobolka Mudug ayaa waxa ay ku guuleysteen inay soo qabtaan hub kala duwan oo la tilmaamay in lagu hayay meel kamid ah magaalada Gaalkacyo. hubkaasi oo lagu soo bandhigay saldhigga bartamaha magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu u badnaa bambooyinka gacanta laga tuuro, gantaalada ceyrsada, guuxa diyaaradaha iyo waliba dharka la xirto xilliga ay dadku ismidaaminayaan. taliyaha qaybta booliska ee gobolka Mudug gaashaanle sare Cabdirashiid Cadceed Geelle ayaa waxa uu tilmaamay in ay ku soo qabteen hubkaasi howlgallo ay sameeyeen ciidamada booliska ayna ka soo qabteen xaafado ku yaala xadka kala qaybiya xaafadaha ay ka kala armiyaan maamulada Puntland iyo Galmudug. waxaa taliyuhu uu tilmaamay in aanay jirin cid ay ku soo qabteen hawshaasi, balse ay ilaa iyo hadda ku raad joogaan dadkii ka dambeeyay falalkaasi. qalabkan wuxuu isugu jiraa bahalada gantaalaha oo diyaaraduhu ridaan oo alcabaaska la yiraahdo. haddana Soomaalidu ay baabuurta iyo waxaas u adeegsadaan oo mataqaanaa isugu jira xabado hoobiye, biitanka, taangiyada iyo waxa lagu dalooliyo, bumbooyinka gacanta laga rido, baaruudaha waxa lagu qarxiyo oo nooc kasta loo adeegsan karo oo mataqaanaa sameeyo ololka sameeya. intaas oo qaybood buu isugu jiraa. waxaan ka soo qabanay magaalada Gaalkacyo, waxa weeye meel hotel iyo xaafado iyo gaarkeeda oo isu dhow oo haddaan magacii afka ku dhufto waxa weeye wali kiisas baa ku jira oo de kulli Gaalkacyo ka soo qabanay. cid kuma aan soo qaban, cidii qalabkaas wadatay waa naloo sheegay. waxa weeye way naga carareen markayna arkeen oo markii hore to ma garanaysaa
aan wax baaraynay marka waan ku daba jirnaa inay qalab kala wataanna waan maleynaynaa. tallaabadani ay ciidamadu ku soo qabteen hubkani ayaa waxa ay tahay tii ugu horeysay oo noocaasi oo kale ah iyadoo ciidamaduna aanay hadda ka hor hub noocaani oo kala soo bandhigin. maamulka Puntland ayaa arintaasi ka hadlay wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Puntland Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta maamulka gobolka Mudug ayaa arintaasi ka hadlay. arintaas dadweynaha inay iska qabtaan baan doonayaa waxyaabo aan horar magaalada ugu jiri jirin oo qaraxyo xun oo doctor iyo caruur yar oo lagu shaqaysto inta wax loo dhiibo la yiraahdo hooyo soo tuura bahasha tan iyo waa dhaqan xumo aan Soomaaliya ahaan jirin dad islaamina ay ku dhaqmi kareen wax la qarxiyo reer degan ama qoys degan oo nabad soo hiday ama dad meel ku sheekaysanaya in wax lagu tuuro waa xaraan weeye. dhinaca kalena waxaa magaalada Gaalkacyo ka soconaya kulamo looga wada arinsanayo sidii loo xalin lahaa khilaafaadyo soo kala dhex galay maamulada Puntland iyo Galmudug oo ka wada jira magaalada Gaalkacyo kuwaas oo ka bilowday muran dhinaca xaafadaha ah. mahad jaamac konto Warsan TV Gaalkacyo. waa hagaag waxaanu daawadayaal intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni toddobaadka iyo geeska Afrika.